aadamka barato oo ma aragtay aad dabeecadahooda iyo dadnimadooda iyo waxooda aad kala barato waxaa ku xiran guushaada adduun iyo mid aakhiro sidaas baa sida ay ma aragtay ay u kala duwan yihiin dhulku uu kala duwan yahay oo dhulku u kala qiimo badan yahay oo dhulku ma aragtay dabeecado kala gedisan u leeyahay ayuu bini aadamkana sidoo kale u leeyahay waana midda rasuulka noo sheegay sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay in allaha subxaanahu watacaala khalaqa aadama qabdatan min qabdatin qabadahaa min jamiici alard ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu abuuray nabiyullaahi aadam wuxuuna ka abuuray cantoobo caro ah oo dhulka o dhan uu ka soo qaaday markaasay bini aadamkii waxay yeesheen midabkii dhulka oo waxaad helaysaa faminhum alasfaru waalaxmaru waalaswadu waalabyad waxaad helaysaa faminhum alaxmaru waalaswadu waalabyadu wa bayna dalika oo kama qaala sala allahu calayhi wasalam waxaad helaysaa bini aadamkii inay midabadii dhulkao kale ay yeesheen oo mid waxaa helaysaa cas iyo mid madow iyo mid cad iyo mid intaba udhexeeyaa helaysaa bini aadamkii sidoo kalena waxay yeesheen dabeecadda dhulka oo kaleo fa minhum asahlu waalxasnu waxaa ka mida mid maaragtay sahal ahoo dabeecad maaragtay dabacsan leh oo dabeecad macaan leh oo sahal ah iyo mid xasan ahoo qallafsan oo maaragtay isaga dhanba qalalan oo maaragtay qaab daran waa ka dhex helaysaa bini aadamka dhexdiisa fa minhum alطayibu waalkhabiith waxaa ka mida mid wanaagsan oo طayib ah iyo mid xun oo khabiitha oo la'iim ah oo xun baad ka helaysaa marka dabeecadihiina saas u kala qaateen oo dhulka hadda markaa fiirisid waxaad helaysaa maalan meelo balliyo ah balliga biyaa yaal dad iyo dunyaa ka caba marka waxaa helaysaa bini aadamkii mid dadku ay ka wada waraabaan oo murti ay ka helaan oo xikmad ay ka helaan oo cilmi ay ka helaan oo mar walba maaragtay markay la saaxiibaan sidaas maaragtay loogu nool yahay oo adduun iyo aakhiraba maaragtay laga dheefaa waxaa ka mida dhulka oo qaybo ka mida waxaa ka mida maalan qaybo boholo ah boholuhu waa boholo naareed waa ku dhacaysaa way kula degaysaa sidoo kale bini aadamka qaarkood haddaad la saaxiibto waa kula degayaan iska da inaa horumarka la gaartay iyagaa ku dejinaya marka meelo boholo ah jirta oo nafta aad kala cararayso ood ka cabsanaysid sidaas ogeed bini aadamka waxaa la rabaa qaarkood inaad ka cabsatid ayna boholo kugu noqon dhulka maalan waxaa ka mid a qaybo beero ah beeruhu waa maal waa hanti waaye dhulkaasaa hal xaba gelinaysaa kun xabaa kaaga soo baxayso hani baa ku noqonaysaa hodan baa ku noqonaysaa bini aadamka waxaa ka mid a dad haddaad la saaxiibto oo la degto sida dhulkaasoo kale ah aad ku barwaaqoobaysid oo aad reero ku yeelanayso oo aad caruro ku yeelanayso oo maal ku yeelanayso oo aqoon ku yeelanayso oo adoo keliya u imaatay aad kun qof ku noqonaysid oo aad ku tirmaysid oo maaragtay maal iyo murti iyo mood iyo wax walba aad ka helaysid marka waxay ku xiran tahay guusha inaad bini aadamka saa u kala baratid bini aadamka dhulka qayb ka mida waxaa dabeecadiisa laho dhulka maaragtay qayb waxaa ka mida bacaad ah bacaadka soomaalida waxay dhahaan wixii maaragtay lagu khasaaray dhahan waa hal bacaad lagu lisay maanta dhan waxa waaye waxa aa ku listay bacaadku waana maaragtay waa meel haddaad wax gelisan wixiina liqaysa waxna aan soo saarin bini aadam waxaa jira haddaad maanta dhan aad wax ku dhurayso oo aad wax barayso oo aad wax u sheegaysid dee hal bacaad lagu lisay ah la saaxiibtinimadiisa hal bacaad lagu lisay cimrigaadaa ku dhumaaya ku khasaaraya marka waxaa u baahan tahay inaad dhulkaas dabeecadahaas ay leeyihiin iyo maaragtay dhulkaas bilicdaas ay u kala qurux badan yihin u kala qiimo badan yihiin inaad bini aadamka mathal oga soo qaadatid